ciidamada booliiska ee magaalada Hargeysa ayaa dhawaan xabsiga u taxaabay Faadumo Siciid Ibraahim oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Faadumo Siciid oo hadda xabsiga laga sii daayay oo kula kulmay hoyga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa ayaan markii hore weydiiyay bal hadda xarigaasi iyo sababta keentay. xarigu wuu jiraa muxuu ahaa khalkhalkana anigu maan gelin waxa geliyay kulmiye iyo taageerayaashoodii horta marka ugu horeysa anigu waxaan ahaa kormeere oo waxaan soo kormeere guud waliba oo waxaan soo kormeerayay goobaha laakiin maxaa ahayd markii ay soo dhawaatay waqtigii la tirinayay meelo badan laga soo dhawaaqo la yiri maraaqibiintiinii lama hayo marka aniga waxaa la ii diray xaggan biyo dhacay oo la yiri maraaqibkii wuu ka maqan yahay dabeetana xafiiskii baa la igu yeeray xafiiskan tagay waxaa la soo siiyay kaarkii muxuu ahaa maraaqibka waa kaas kaarkayga maraaqibka baa la soo dhiibay dabeetana waxaa la soo raaciyay maxaa ahayd gudoomiyihii ololaha Kildi oo la igu yiri maxaa ahayd kixee waxaad geysaa goobta biyo dhacay labaad miyahayd waxaan kaasa oo maxaa maraaqibkii ka maqan yahay marka shaqadaydu wax kale ma ahayn waxa ahayd bes inaan markhaati ka ahaado codadka oo aan wakiilkii wadani u noqdo markii aanu meesha tagnay horta buuq fara badan baa jiray dad badan baa meesha guuxayay oo isdaba marayay taasuna maxaad meel goob walba caynkaasaba ka jirtay wax cusub ma ahayn gudoomiyihii wuu kaxeeyay maxaa askartii buu igeeyay kodinka joogtay wuxuu yiri waxa maraaqibkii maqnaa bedelkii waan sii daayeen gudoomiyihii goobta joogtay baa la igeeyay waxa la yiri maraaqibkii aad soo sheegteen inaanu joogin bedelkiisii weeyaan waxay weydiisay cadayntaydan aan u dhiibay aan ku yiri waa kaa gudoomiyihina wuu markhaati furay inay day wadani soo dirtay oo aan ahay maxaa ahayd maraaqibka bedelkiisii kursi bay fadhiisay oo ay laba maraaqib oo kale ay fadhiyaan waxay tiri halka fadhiiso waxay tiri sanduuqii waan furaynaa tiradii baan markaa maxaa ahayd in eegina anuu sanduuqan ka saaraya inan taasuna way ku dhawaaqaysaa idinkuna wad qoraysaa seeran ama cusub baa yimi haye waxa la nagu yiri in xidha haye ma sidaas ahaa no problem baan stationkii dhaxal la geeyay dabeetana maxaa ahayd waa lay booking gareeyay waa la xidhay goobta xisbiga kulmiye ayaa codkiisu ku badnaa Faadumo Siciidna khalkhal bay meesha sidii ay u galiso oo codkaasi u gubto hadda weedha sidaa oranaysa maxaad ka leedahay waxa weeyaan hadii horta wuxuu qof hadad og tahay inuu qof khalkhal ka gelinayo wax adigu aad u badan tahay sidii aad amniga adigu u sugi lahayd babad adigu maxaa ahayd qabanaysaa hadii ay isleeyihiin meesha idinka u badan Faadumo way idinka khalkhal gelinaysa iyagu waxa u fiicnayd ba inay yiraahdaan wadaaya innakaaba u badane waxay qaban karaysi waxay qaadi kartaba xaqaado laba askari inta gudaha la geeyliyo la yiraahdo walba ilaaliya ile sarkaal dhanba ku jiray sarkaalka ay aaminsanaadaan inuu isaguna maxaa ahayd meeshii sugayo for what reason ba iyakiiba khalkhal sii geliyayba meeshii Faadumo Siciidin waxay dad badan isweydiinayaan markii hore muraaqibiin baad qorateen muraaqibiintina meesha joogay muraaqibka halkan aad adigu tagtay ku qornaa ee ka baxay muxuu ahaa bal halka tafsiir yar bixi wallahi horta anaku ismaan weydiin muxuu xagaabuu tagay waxa inkaas waxa weyn xaaladdu markay degdeg kugu tahay waxa meesha buuxi